Asalaamu calaykum saaxiibayaal kusoo dhawaada janaalka Somali Tutorials. Fadlan janaalka haddii aad ku cusub tahay subscribe inoo saar, sidoo kalena muuqaalka inoo la garay. Haddii aad hore inoola joogtayna waxaan ku leeyahay mar labaad soo dhawow saaxiib. Maanta muuqaalkeena waa uu ka duwan yahay muuqaaladii hore ee aad kaga barateen janaalka. Muuqaalkan waa skill ama skills ama markaa waxyaalaha oo xirfadooyinka markaa qofka oo u baahan yahay inuu isticmaalo ama taatikooyinka markaa qofku uu isticmaali karo. Dabcan sida aad title-ka iyo thumbnail-ka aad ka soo aragtay, haddii ay tahay booqashadaadii kugu horeysay ee aad soo booqato janaalkan, fadlan ha naga iloobin inaad janaalka subscribe inoo saarto, muuqaalkana aad inoo la galayso. Dabcan muuqaalkan waxa aan rabaa inaan kugu baro xeelad markaa aad ku isticmaali karto abab markaa aad labaad u isticmaali karto. Maybe inaad tahay qof markaa business ah ee shaqeeya ee u baahan user markaa oo ganacsi ah iyo mid markaa special oo qaas ah. Haddaba markaa ababka inta aan kugu tusi rabo waxaa kamid ah abkan Facebook oo kaleeto, in markaa aad laba Facebook telefonka aad ku isticmaasho adigoo playlistiga Play Store-ka ama markaa App Store-ka aadan kala soo degin Facebook Lite iyo waxyaalo noocaas ah. Telefonkaaga setting-ka gudihiisa inaan ka tuso qaab markaa Facebook laba telefonkaaga dhexdiisa aad uga abuuran karto. Sidoo kale waxyaalaha aan ku tusaya cajiibka ah waxaa kamid ah WhatsApp. adoon WhatsApp business la soo degin ama WhatsApp Lite la soo degin, just halka WhatsApp originalka aad isticmaalayso inaad markaa double ka dhigto labo. Waxyaalaha kale secret-ka aan ku tusayo hore aysan cidna ku tusin waxaa kamid ah messenger-kaaga in markaa aad ka dhigato laba messenger. Haddaba waxaad awoodaa laba Facebook iyo laba messenger iyo laba WhatsApp, iyo sidoo kale waxaa jiro Snapchat. haddii aad isticmaasho laba Snapchat waxaa suran maanta inaan ku baro. Haddii marka laba Facebook iyo laba messenger aad soo degto, waxaad awoodaa inaad ku kala isticmaasho laba ciwaan oo kala nooc ah oo midna business ah midna personal ah. Haddii aad doonto labadaba personal waa ka dhigan kartaa. Sidoo kale waxa aad samayn kartaa laba WhatsApp ayaa telefonka ku isticmaali kartaa adigoo midka kale aad ku isticmaali karto ciwaan ku qaas ah ama number ku qaas ah. Uma baahnid inaad la soo degto WhatsApp business, uma baahnid inaad la soo degto WhatsApp Lite, uma baahnid inaad soo degto GB WhatsApp. Just halkaan aad isticmaalayso originalka ayaad waxa ka dhigaysaa double. Xeeladaas ayaan rabaa muuqaalkan aan kugu tuso maanta saaxiib. Haddii ay tahay booqashadaadii kugu horeysay oo aad soo booqato janaalka Somali Tutorial, fadlan janaalka like inoo saar, sidoo kalena muuqaalka inoo la garay. Sharaxaada inaan ku dheeraan aynu u guda galno muuqaalkeena. Waayahay saaxiib, ugu horeen waxaan ku tusayaa marka hore halkaan sida aad ugu jid waxaan isticmaalayaa just Facebook halkaas xaba ayaan isticmaalayaa ku calaamadeeyay. Sidoo kale messenger-ka waxaan isticmaalayaa halkaas xaba ayaan ku calaamadeeyay. Sidoo kale WhatsApp waxaan isticmaalayaa halkaas xaba ayaan ku calaamadeeyay. Waxa aan rabaa inaan ku tuso iyagoo markaa double ah. Waayahay waxaan tagayaa ugu horeyn setting-ka. Adna waxaad tagaysaa setting-ka mobilkaaga. Sidoo kale daawadow aan ku xasuusiyo maybe inaan adiga aan isku telefoon ahayn, aan kala duwanahay. Setting-kaaga iyo setting-kayga inaysan islahayn, laakiin waxa aan rajeynayaa inaad fahmi doonto insha Allah. Haddii ay dhacdo in setting-kaaga iyo setting-kayga aysan islahayn, waxa ay soo baxayaan ay ku soo bixi waayaan, fadlan qaybta hoose ee comment-ga igu reeb. Waxa aan rajeynayaa mobile kala duwan inaan ka soo sameeyo insha Allah. haddii muuqaalku ku cajiibiyeen sidoo kale like saar si markaa asxaab far badan uu gaaro. Waayahay hadda setting-kayga dabcan waa kan. Sidaa waxaan u galayaa setting-ka markaa sidaa u furo kadib waxa aan ka dooranayaa qaybtan ayaan kor u jiidayaa. Qaybta marka kor aan u jiido waxa aan si toos ah u dooranayaa meeshan ay ku qoran tahay apps. Dabcan apps marka aan doorto daawado waxa aan soo doortay setting-kayga kadibna waxa aan ka doortay apps. haddana waxa aan sii dooranayaa meeshan ay ku qoran tahay App to Win. dabcan haddii uusan ku lahayn comment-iga igu reeb si markaa mobile kala duwan aan uga soo sameeyo. dabcan waayahay halkan waxaa ku qoran App to Win display baad iga tahay, waan taaban doonaa. Markii aan taabto waxa ii soo baxay Facebook, Messenger, WhatsApp. dabcan halkan waxaa ka maqan Snapchat oo anigu Snapchat ma isticmaalo, telefonkaygana kuma jiro.
haddii aan hadda Play Store-ka aan tago aan soo install garay Snapchat kadib halkan wuu soo geli doonaa waxa uuna ii ogolaan doonaa in markaa aan ka dhigto laba Snapchat. dabcan Facebook-gaygi originalka ahaa ee aan ka soo degsaday Play Store-ka haddii aan halkaa taabto wuxuu ii noqonayaa laba Facebook. dabcan creating twin app waxaa la sameynayaa application labaad ee Facebook ah waliba taleefankaaga adigoo markaa Play Store-kaadan aadin adigoo Facebook late aadan la soo degin kuma qasbanid haddii aad laba ciwaan leedahay oo Facebook ah oo aadan ka maarmin kuma qasbanid maanta inaan login iyo log out aad dhahdo just waxaad sameysanaysaa shaxdan aan ku tusayo kadibna labadaada active bay noqonayaan oo adaa isla hadli kara adaa wax isku diri kara adaa iswici kara sida laba qof oo kala duwan camal simple. hadda waxa aan sameynay Facebook labaad sidoo kale waxa aan sameynaynaa Messenger labaad iyo sidoo kale WhatsApp labaad. dabcan hadda WhatsApp-na waan sameynay Messenger-na waan sameynay Facebook-na waan sameynay bal aynu hal mar ka baxno oo aan ku soo laabano taleefankeena. dabcan daawado halkaan aan ku calaameeyay maxaad uga jeedaa sheeg halkaan aan ku calaameeyay maxaad uga jeedaa Facebook 2 Messenger 2 iyo WhatsApp 2. haddaba aan ku tuso kuwii caadiga ahaa waa kuwan. dabcan halkan waa WhatsApp-kii caadiga ahaa wax number kuma qorna waa Messenger-kii caadiga ahaa wax number kuma qorna waa Facebook-kii caadiga ahaa wax number kuma qorna balse halkan sida aad ugu jeedo waa qaybtii twins-ka markaa. dabcan haddii aad rabto hal meel waa isku keeni kartaa haddii aad rabto waa soo rari kartaa. for example haddii aad Facebook-kan taabato waa Facebook caadi ah waxa uu ku leeyahay sameysa ciwaan ama login garay uma baahnid inaad la soo degto late iyo waxyaalo noocaas ah uma baahnid inaad laba taleefan aad ka kala kicisa laba ciwaan just waxaad isticmaalsaa shaxdan. janaalka haddii aad ku cusubtahay saaxiib subscribe inoo saar muuqaalkana fadlan like-ta ka iloobin si markaa meel dheer uu gaaro. dabcan waxay naga caawinaysaa muuqaalka like badan helo in markaa asxaab fara badan ama dad fara badan uu gaaro. waayahay dabcan waa kaas waa Facebook caadi ah login iyo wuxuu ku soo saarayaa iyo markaa daarta create new account qaybta hoose ugu jido. WhatsApp-kana waa sidoo kale saaxiib muuqaalka yaanan ku dheeraanin waxa aan rajeynayaa inaad subscribe inoo saartay muuqaalka aad inoo like garaysay asxaabtaadana aad u share garaysay. waxyaalo kalena waa idin soo wadaa kuwaasoo markaa la xiriira tiknoolajiyada ama ababka noocan oo kale ah ama waxyaalaha markaas dadka la isticmaalay qaabka loo isticmaalay waxyaalo noocaas ah. haddii aad xiiseynaysaan qaybta hoose ee commentiga igu raaba insha Allah. janaalku waa janaalkiina support gareeya oo taageera waa maasantiin saaxiibayaal.